Hi guys, Assalamu alaikum. Waaniga Cabditaah Ibrahima xagga nagala socotana waxa weeye Somaltech maanta waxaan ka hadli doonaa cashar aad u muhiima oo ku saabsan maxay hayday external lessons keena. Okay, casharada lessons ka aan qaadano waxa ku jira qaar ah external lessons oo maxay hayday faa'iido ku ah maxay hayday oo aanad meelna ku dhiganaynin laakiin si aqoon ahaan idin ogaataa ay important tahay. Marka mostly casharada waxaan ka sameynaa computerka iyo wixii related courseska ee la xiriira. Okay, maanta waxaan ka hadlaynaa STD ama solid state disk wax loo yaqaano iyo HDD ga already waa taqaanaa STD-gana laga yaabaa qaar idin kamid inay taqaanaan macnaha waxa weeye qayb kamid ah maxay hayday computerkaaga oo read and write ka ku sameynaysa storage-kaaga macnaha hadaan soo koobno waa storage-ka computerkaaga marka laba qaab ayaa jira waa STD wax la leeyahay HDD labadaas in eegi doonaa maanta waxay ku kala duwan yihiin. Okay, waxaan ku eegi doonaa maxaa u dhaxeeya farqiga u dhaxeeya muxuu yahay marka laga hadlayo STD-ga waa solid state disk ayay u taagan tahay ama abbreviationskiisu ama acronymigiisu uu yahay. Okay, intaasay u taagan tahay solid state disk waana maxay hayday flash storage weeye macnaha male moving ma soconayso waxay ku attach garaysan tahay oo ku xidhan tahay maxay hayday motherboard-kaaga sidoo kalena waxa weeye small size weeye marka la compare garanayo ama la barbar dhigayo HDD-gaaga caadiga sidoo kale waxa weeye space-kii qaadanaysana aad buu u yar yahay maxay hayday xagga speed-kana waxa weeye waa faster macnaha speed-keedu uu ka sareeyaa marka loo eegayo speed-ka maxay hayday HDD-ga ama hard disk-ga. Okay, hard disk-gu isaguna muxuu yahay hard disk-gu waxa weeye waa magnetic tab buu leeyahay macnaha waxa weeye mechanical parts buu leeyahay tusaale ahaan oo kale hard disk-gaagu maxay kuma xidhna computerkaaga macnaha uu kala furan yahay tusaale ahaan oo kale isaga qaybihiisa laftarkiisu way isku sii xidhan yihiin macnaha si dhib yar baa maxay hayday looga saari karaya computerkaaga kuma xidhna macnaheedu weeye xagga size-keeduna aad ayuu u ballaaran yahay xagga maxay hayday speed-kana marka la eegayo aad ayay speed-keedu uga yar yahay solid state-ka ama maxay hayday STD-ga kuwa loo yaqaano. Okay, haddaba tusaale ahaan oo kale way maxaad u isticmaalaysaa STD-ga waa maxay sababtaad u isticmaalayso STD tusaale ahaan oo kale markaad doonaysid inaad isticmaasho STD-ga advantage-kiisu waxa weeye xagga maxay hayday faster-ka tusaale ahaan oo kale imika haddaad doonaysid file 2 GB oo kale ah ama maxay hayday 1 GB oo kale ah inaad ku samayso movement oo aad intaad ka qaado computerkaaga meel kamid meel kale aad geysid maybe waxay kugu qaadanaysaa less time tusaale ahaan waxay kugu qaadanaysaa seconds bay kugu qaadanaysaa halka ay kugu qaadanayso approximately 2 minute bay kugu qaadanaysaa marka la joogo HDD-ga. haddaba sababta aad maxay hayday ugu built garanaysa ama built inka uu ku yahay PC-ga uu ku samaysan ama personal computer-kaaga ku samaysan SD-ga aad uga doorbidaysid maxay hayday ka ku samaysan HDD-gu waxa weeye booting-ka markaad sameynaysid computer-kaaga waxaad jeceshahay mostly markaad soo boot garanaysid inuu faster kugu soo boot garoobo oo macnaha uu read and write-kaagi uu maxay hayday si fudud kugu sameeyo oo markaad soo shido uu screen-kaaga ku yimaado laakiin HDD-ga taasi suurtagal maaha sababtaad ku doorbidaysid SSD-ga waxa kamid ah taas oo kale waxa kamid ah tusaale ahaan oo kale game-ka dad ciyaaraysid gameska dad u baahan tahay markuu sameeyo loading-ka tusaale ahaan oo kale uu soo kacayo wuxuu qaataa waqti buu qaadanay markaad joogtid HDD-ga laakiin HDD-gu somehow way ku fiican tahay marka xagga storage ahaan oo kale oo way waxaad heli kartaa qaar storage-keedu uu fara badan yahay. Okay, laakiin waxaan ka hadlaynaa xagga speed-ka xagga speed-ka markaad sameynaysid soo kacayo game-kaaga waxa laga yaabaa waqti inuu qaato halka uu mostly maxay hayday qaadanayo qaar kamid ah gameska maxay hayday 25 second oo kale uu ku qaadanayo SSD oo kale. Okay, sababahaas waa sababaha keeni kara in STD-gaaga aad uga doorbido macnaha computerka HDD-ga leh. Okay, so many things kale ayaa jira laakiin intaas ugu muhiimsan casharkan waxaan soo dhigi doonaa description-ka waad ka akhrisan doontaa link-ga. Okay, HDD-ga haddaba HDD-ga laftarkeedu maxay kaga fiican tahay STD-ga xagga STD-ga markaad u eegaysid waxa laga yaabaa in aad heli karto maxay hayday 1 terabyte ama 2 terabyte oo kale aad heli karto
oo lacag yar oo kale approximately 100 kugu noqonayo lacagtiisu ku noqonayso oo macnaha waxa loo isticmaalaa marka doonaysid data huge ama aad u ballaaran in aad maxay heeday save gareyso ama aad store gareyso mostly waxaad u baahantahay HDD-gaaga ama traditional hard disk-gaaga ayaad u baahantahay inaad haysato taasina macnaheedu waxa weeye xagga cost-ka marka la eegayo HDD-gaagu xagga cost-ka way ka fiican tahay xagga cost-ka way ka fiican tahay oo way ka wanaagsan tahay marka la eegayo okay sababtaas waxa weeye sababta aynu ku dooranayno maxay heeday HDD-gaaga ay kaga fiican tahay maxay heeday SSD-gaaga okay marka sababahaas oo kale ayaad ku dooran karaysaa HDD-ga laakiin mostly xagga cost-ka kale way ku fiican tahay HDD-gu laakiin mostly recommended waxaan kugu siin lahaa in aad maxay heeday SSD-ga aad isticmaasho SSD-ga inaad isticmaasho waayo sababta SSD-ga aad u isticmaalaysid sidoo kale waxaa jira kuwa loo yaqaano aan ku daraya loo yaqaano hybrid computers kuwa jira oo macnaha labadaba ku build garaysan HDD-ga qaar uu ku jiro iyo SSD-gu labaduba ay ku jiraan ayaa jira maxay heeday taasna way si fiican tahay kuwaas aad u si fiican labadaba hadda helaysid ka ku base garaysan yahay okay laakiin mostly waxa wanaagsan SSD-ga inaad isticmaasho computer-kaaga hada doonaysid xagga booting-ka inuu ku soo kaco si faster xagga games-ka oo kale programmers-kaaga oo kale markaad raan galinaysid waxyaabahaas oo dhan SSD-ga ayaa ku fiican marka waxaan ku hadlaynaa casharkeena maanta topic aad u muhiim ah oo ku saabsan maxay hayday HDD-ga iyo SSD-ga oo ay tahay mawduuc aad u muhiim ah oo inaad ogaataa ay fiican tahay okay maanta hadaba casharkeena xaggaas buu inoogu ekaanayaa casharkan inta mid kamid ah la kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo